waxaa la yidhi beri baa nin doobnimo ku raagay oo haystaa 100 halaad iyo baarqabkoodii waxaa galay hawo guur wuxuu ku hamiyey nolosha doobnimada intuu ka baxo inuu noqdo qoys lagu soo hirto meel degan maalin baa isagoo geeliisii la jooga oo hees dhaqameed isku maaweelinaya ayaa waxa uu sheedda ka arkay inan dhuuban oo midabkeedu maarin yahay oo keligeed ari la joogta gabadhu waxay xoolaha ugu heesaysay erayo sarbeeb ah oo wiilka fariin u ah oo ay ku muujinayso inay tahay gashaati guurdoona oo waxay lahayd midii hantooy hagaajiyaan u heellane waan haybiyaa oon haybiyaa mana hayee harraadayey sideen u helaa doobkii guurdoonka ahaa jawaab degdeg ah ayuu ka bixiyey erayada ka soo yeedhay xagga gabadha oo waxa uu sheegay in isaga qudhiisu uu baafinayo oo baadigoob ugu jiro lamaantii naftiisa oo waxa uu yidhi ambaahiboy hawaada guurku haamiyey waan haybiyaa mana haye harraadayey sidau helaa calaacalka ayaana wiilkii iyo inantii ayaantaa ku kala dhaqaaqeen isaga oo mid walbaaba xoolihiisii u heesaya doobkii go'aankii guurka ayaa ku sii xoogaystay oo wuxuu go'aan ku qaatay gabadha uu soo arkay inuu ka daba tago muuse degdegin ee waxa uu sugay inta roobka curanayo markii roobkii da'ay ee dhulkii barwaaqoobay ayuu safar dheer u galay jihada gabadhu ka jirto intii uu jidka ku sii jiray wuxuu doobkaasi sii dhinac maray kaymo bahalagaleena oo waraabaha iyo libaaxyadu buuxdhaafiyeen saacado badan wuxuu sii socdaba wuxuu ugu dambayntii ku soo dhowaaday gurigii uu ku socday oo ah aqal Soomaali ku ag yaalla aag barwaaqa ah meel fog isagu oo soo lugaynaya ayuu si kadis ah oo lama filaana isha ula helay qalanjadii uu jidka dheer u soo maray oo albaabka aqalkoodii hortaagan iyada oo dharkii dhaqanka ku labisan oo ka yaxyaxsan ninkan ku soo socda ee meesha durugsan ka soo indhaynaya ayayna dhaqaaqday oo hore u gashay aqal Soomaaligii doobkiina wuxuu soo istaagay albaabkii reerka isagoo iska soo horraysiiyey salaan diiran oo dareen leh iyada oo xeerkaas oo jireenka ah la raacayo ayaana si wacan loo soo dhoweeyey oo waxaa wiilkii la fadhiisiyey ardaagii reerka halkaasoo hilib iyo caanaba loo dhigay markii cabbaar la fadhiyey ee daalkii ka ba'ay ee hilibkii caanihii loo soo dhigay uu ka dhergay ayuu gabadha aabbaheed la hadlay una sheegay ujeeddada safarkiisa wuxuuna hadalkiisa ku soo xidhay inuu yahay doob guurdoon ah oo qalanjada qoyska u soo qalab qaatay ayaa hadalkii qaatay wuxuuna ammaan xaddaafa kala dul dhacay inantiisii la soo doonay oo uu ku tilmaamay dheeman dahabiya oo arladan dhifya naadir ku ah hadalkii odaygu wuxuu ku soo ururay hal shardi oo ah si aan gabadha kuu siiyo waa inaad bixisaa 100 halaad iyo baarqabkoodii wiilkii doobka ahaa inkastoo xoolaba uu 100 halaad iyo baarqabkooda ka haystay haddana shardigii lagu xidhay wuu aqbalay xoogaa kadibna reerkii wuxuu u keenay 100 halaad iyo baarqabkoodii dhalintii dhulkaas ayaana dheel dhaantaa ku soo dhoweeyey arooskii cusbaa mashxarad iyo dabaaldeg ayaana isqabsaday
ugu dambayntiina doobkii gabadhii wuu kaxaystay isagoo aan wax xoolaa haysan ayuuna ula dhaqaaqay arladii uu asal ahaan ka yimi. waxayna deris ama jaar la noqdeen nin dabataa oon xoolo haysan. ninkii gabadha guursadayna isna deriskiisii ayuu la duruufya dabeecad noqday oo dabata ayuu noqday. wuxuu bartay tab iyo xeelad cusub oo wuxuu xariif ku noqday sida leebka iyo qaansada loogu ugaadhsado. iyagoo nolosha noocaasa ku nool oo xaalkuna aad ugu xun yahay oon xoolo haysan caydhna ah ayaa muddo kadib waxaa ka daba yimi odaygii gabadha dhalay isagoo raba in xoolo kale la siiyo ayuuna albaabkoodii soo istaagay. qoyskii xaalkii ayaa ku sii xumaaday maxaa yeelay maalintaa inay odayga martiqaad u sameeyaan iska baddaaye iyagaanba haysan waxay cunaan. kadibna gabadhii ayaa ninkii deriska ahaa u tagtay oo weyddiisay inuu amaahiyo wax cuntaa. ninkii deriska ahaana wuxuu gabadhii ku yidhi lug sagaara baan hayaa laakiin ku siin maayo ilaa buu yidhi aad ii ballan qaaddo in ninkaaga aad iiga soo tagto oo aad aniga marwo ii noqoto. gabadhii xaaska ahayd way yaabtay laakiin iyadoo isdejinaysa ayaa waxay ku tidhi waynu heshiin doonnaa ee horta balderisnimadeenna adoo xeerinaya lugta sagaarada isiisii aabbahay baa na soo booqday oo aannu cunto uga dhigayaaye. lugtii sagaarada ayuu siiyey kadibna aabbaheed ayay u karisay oo sidaa ku cunay. maalintii dambe ninkeedii aabbaheed iyo ninkii deriska ahaa oo meel wada taagan ayay gabadhi u timi kuna tidhi 3 maanlaawe ayaa tihiin. aabbaheed baa yidhi oo maxaannu ku noqonnay maanlaawayaal. waxay tidhi 100kii halaadee inankaad sodogga u tahay xoolaba uu ka lahaa waad ka qaadatay markaasaad adigoo cayr nagu og maantana aad xoolo kala doonaysaa. ninkeedii ayay ku jeesatay oo ay ku tidhi adna maanlaawe waxaad ku tahay adoo 100 geela xoolaba ka leh ayaad 100kiiba subax dareerisay si aad aniga iigu soo guursato. deriskeedii baa yidhi oo anna maxaan galabsaday oo aad maanlaawe iigu tilmaamtay. markaasay intay xaggiisa jalleecday bay tidhi waxaad tahay naag 100 iyo baarqabkeedii laga bixiyey ninka lug sagaara ku doonaya. odaygii gabadha dhalay hadalka inantiisa ee wada xikmadda ah aad buu ugu farxay isagoon wax jawaaba siin ayuuna sidaa ku baxay. muddo kadib ayuu soo noqday isagoo 100 halaad iyo tiro adhiya wada. taasina waxay jawaab u noqotay hadalkii inantiisa. reerkiina sidaas ayuu ku noqday hal qoys oo nolol barwaaqa ah ku nool. ninkii deriska ahaa ee lugta sagaaradu la weynaydna xoolihii ayaa qayb laga siiyey.